waa hooyo haysataa dhowr carruur ah waa farsamo yaqaan bartay xirfadda farsamada gacanta laakiin duruufaha ku xeedhan awgood u suurtogelin waayey in xirfaddeeda ay hormariso. qofkan aan ka hadlayo waa hooyo yareeyo weyd duwane oo ku nool xaafadda lixaad ee magaalada Jigjiga. kan waa calanka deegaanka, kuwan kale awal sharaxaad iyo waxay iska ahayd noocyo kale oo la isku dardaraa, laakiin hadda calanka deegaankan ku darnay. waana samayn jiray wax badan baan soo sameeyay, hadda dirdhaban ku samayn jiray, waan ku shaqaysan jiray, shaqo ay ahayd ciyaalkan ugu shaqaysan jiray. maxaan ku dhahay inta hadda ka horeysa dirdhab waa layga gadan jiray, dadka dalka dibadiisa jira ay soo doonan jiray, waa layga soo dalban jiray, boostan u dhigi jiray, barna way qaadan jireen, saasaan ugu shaqaysan jiray. marka guriga sedsed baa loo gataa, sedsedkaasaa guriga lagu sharaxdaa. waxaan ku dhahay qayba isku egba waa sed. marka shaqadayday ahayd shaqa abuur baan ka dhigan jiray. sedka waxaa weeyaan sidan oo kale weeyaan buluuga ah. qaybtaa kale ayagana casaankaa waa sed ayagana. calanka deegaankana haddaan wada oon samaynayo qaybahan baan ka hayaa. hadda cuntada waxaan ka dhigaa bacda cuntadoo kale yaan lagu haynayaa. tan sida tanoo kale weeyaan, ayadna bulad baa loo yeelayaa. maantun baan sameeyey, waata calanka deegaanka. yareeyo samaynta alaabtan waxa ay gelisaa waqti badan, laakiin waqtigani beddelkiisa kama hesho wax dhaqaale ah oo u dhigma amaba ka badan dhaqaalaha ay alaabtani samaynteeda geliso. may hadda igama soo galaan. waagii hore dirdhaw waa laygu yaqaanay, dadka way gadan jireen oo dadka dibadiisa iyo dalkaba way iga gadan jireen. laakiin halkan maanan dadkii inay aqoonin iyo ma garanayo inay ayaga ayna garanaynin, baan kala garanayn. hal abuurkaygun baan ku keena. marka haddana shaqo bii noqdo warkaas oo ku shaqaystanayaba. shaqoon ku shaqaystaa, lacag badan baa iga soo geli jirto. ciyaalka ayagan ugu shaqayn jiray markii hore dirdhaba jooga. hadda maxaan ku dhahay wax iibsadiyo waxaan baana garanaynin mooyeen. dirdhaba markaan joogay dadka dalka dibadiisa iyo wax walba la iiga soo dooran jiray oo ka iibin jiray. waxaan ka sameeyaa shootoli iyo bahashan cad oo kale sida tabacda ku jirto oo kale ayaan ka sameeyaa. waa soo iibiyaa, suuqan ka soo iibiyaa. China iyo meelahaas ka imaadaan ayadan. marka waxyaabahan iminka dhowr kalar oo kala duwan bay isku jiraan. marka kalar kasta ma goonidiisa u soo iibsaa? kalar kasta goonidiisaan u soo iibiyaa. kalar kasta kalar oo eg ma jiro. kalar walba qaybtiisaan u soo iibinaa. maxaashaan saafidaana waan ka talaa. hooyadan oo weyse sida ii sheegtay cid ka gacan siiso suuqgeynta agabkan ay soo saarto ayaa si nolol maalmeedka qoyska ay u soo saarto waxa ay dhanka kale dharka haweenka ay xidhaan ku iibisaa suuqa si nolosha qoyska ay ugu dabarto. suuqan ka xamaashayo shiidka iyo waxaasaan suuqa ku iibiyaa. meelaha gaarigacamada iyo waxaa lagu waxay haweenka ku iibiyaan ku jira. halkaasaan haddana xamaalka aan ka galo aan ku maxaan ku dhahaa aan ka soo saaraa reerka maamkiis iyo 5 ciyaal leh. 5 ciyaalka iyo 5 kale oo ila joogtaba way jiraan. intaaba iyagun baan ka caawiyaa. ugu dambeyntii hooyadan hal-abuur kale waxa ay ka dalbatay cid kasta iyo dowladda, gaar ahaan xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad deegaanka Soomaalida inuu gacan ka siiyo suuqgeynta wax soo saarkeeda si ay xirfadeedu u hormariso. waxaan u sheegayaa inaan dhiirigelin ay igu sameeyaan oo alaabtan ka shaqeeyo oo maxaan ku dhahaa ruuxii u baahan igu iibsado, kii kale igu dhiirigelin karana igu dhiirigeliyo. saasaan codsanayaa xafiiska dalxiiska iyo